Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay asxaabta halkan ku xidhan meel kasta aad joogtaan. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdo runtii cajiib ah. Saaxiibayaal soo dhawaada mar kale. Qisadeena waxay ka dhacday waddanka Masar, gaar ahaan waxay ku dhacday wiil 19 jir ah. Wiilkan waxbarashadiisu wax baran jiray kulliyadda suugaanta. Haddaba wiilkan maalin maalmaha ka mid ah sidii uu sheegay waxaan isbaranay buu yiri inaan qurux badan oo kaftan badan oo hadal badan oo hadday hees qaado fanaanada caanka ee reer Masar ee Shaadiya la dhaho ka cod macaanba. Aragtidii koowaad aan arkay buu yiri ayaaban kuba jeclaaday inantii jacayl baan ku salaamay inantii. haddaba aduu jacayl buuba u qaaday dookhiisii bay noqotay oo inantii lambarkeeda ay ku qortay muddo ayay halkaa ka wada hadlayeen. haddaba waxaa dhacday ilbiriqsiyadii aan la hadlayo yiri waxaanba noqotay inanta hadalkeedii iyo sidee u hadlasay qaabka u hadlasay ayay soo jiitay buu yiri. Absolutely wuxuu yiri iyada horteed xidhiidho kala duwan baa lahaa, balse xidhiidhadaasu waxay ahaayeen afka baalkii bay ahaayeen buu yiri xidhiidho ilbiriqsiyada kooban. raaxadaas aan dareemi jiray buu ahaa, laakiin mu jirin buu yiri dumarkaas iyada horteed aan xidhiidhka la lahaa mid si dhaba aan u jeclahay. dumarkaana waxaa ka mid ahaa gabadh yaro ee jaar nahay buu yiri oo aabaheed khudradda guriga u keeno ii keeni jirtay, cuntada hooyadeed guriga ku karisa ii keeni jirtay, cuntada ugu macaan hooyadeed kariso. waxay kaloo ila qaadan jirtay buu yiri waqti xaalad wacan bay ila qaadan jirtay, waqti wacan ayay ila qaadan jirtay buu yiri. intaa waxaa noo sii dheeraa buu yiri waqti wacan iyo raaxan inantaa wala qaadan jiray. ugu dambeyn balse inantaas mar allaale markaas ii timaado oo waqtiga wada qaadano ayaa igu dambeyn jirtay buu yiri. iyadana imay soo qaraaci jirin annama aan qaraacin. hase ahaatee buu yiri gabadhan imika aan isbarannay aad iyo aad ayaan uga fekeray, aad iyo aad buu uga fekeri jiray gabadh uu markasta wiil uu qaraacaheed markasta la hadli jiray. iyaduna waxay u qaaday jirtay heesaha cishqiga ah ee Shaadiya ay leedahay. Shaadiya waxa weeya haddana idno gabadhan Shaadiya waa artirishad u dhalatay waddanka Masar, waa hoobalad fanaanad weeya, fanaaniinta ugu caansan waddanka Masar weeya. haddaba heesaha Shaadiya u qaadi jirtay wiilka, midhaha heesaha Shaadiyana waxaa ka mid ahaa tartaaban dabka u dul aallaa, deerku ahaa dood wadaagaynii koobaad, adigaan kugu riyoodaa, iyo dhammaan heesaha jacaylka oo idil ayay u qaadi jirtay wiilka. haddaba wiilkana hadiyad ahaan waxay u siisay sawiro iyadu leedahay. sawiraduna waxay ahaayeen sawiradan guryaha la dhigto ee ma ahayn sawirada moolada laisugu diro, sawirada iyadu leedahay ayay siisay. wiilkiina wuxuuna u ballan qaaday wiilkii markuu arkay jacaylkeedii isu hubsaday inanta wuxuu u ballan qaaday inuu waxbarashada meel wacan uu ka gaari doono, inuu dadaali doono, imtixaankana uu noqon doono ardayda ugu baasitaanka wacan ugu kaalinta koowaad geli doona. sidoo isku guursan uu yiri dadaal badan baan sameynaya. wiilkii waxay ku gaadhayba wax akhris iyo soo jeeditaan badan markuu sameeyey. marmarka qaarkood habeenka saqbadhkiisa dhexe ayuu wax qaybi jiray dadaal inta uu ka qabo. iyadoo xaalku halkaa u marayo ayaa si kadiis ah ayuu wiilkii bilo dhowr ah u waayay inantii jaaniyo cirib meel ay dhigto. laakiin nasiib wanaag inantii wuxuu arkay inan ay saaxiib yihiin oo isku dhow yihiin. inantii ay saaxiib ahaayeen ayuu waraaq buu qoray. inantaas isu galaas bay ahaayeen waxay dhigan jireen iskuulka.
inantii waraaq buu ugu dhiibay, wuxuu ku yidhi inantii u dhiib ee saaxiibada ahaydeen. kadib inantii waraaqdii ayay u geysay saaxiibadeed. markay aragtay waraaqdii ayay fariin bay u soo qortay waxaad ku tiraahdaa aabbahay ayaa ii siiyey nin 3 xidigoolaha oo qasab igu siiyey. markaa uu sheegay inantii way guursanaysaa ku dhahay inantii ay saaxiibo ahaayeen. si degdeg isla maalintiiba wiilkii fariintii way ku soo warcelisay, waxayna u sheegtay xaaladii inay sidaa tahay, inantii ay guursan doonto. ilbiriqsiyadii maalintaas ayaa waxaa dhacday wiilkii inuu cadihiisa dhulka ku hayn kari waayeyba, naxdin aawadeed ka naxayba. inantii intaasoo dhan aad waqtigeeda soo wada qaadanayseen ayaa maanta nin kale la siiyey. inankii adugu ka naxay, wuxuuna ku fekeray inuu qudha iska jaro oo qudha iska gooyo. markaas dhalo isbiriin oo ka ag dhoweyd gurigooda qolkiisa ayuu markiiba u laacay wiilkii, balse markiiba isaga dhakhtarka ayaa looga cararay. dhakhtarka ayaa la geeyey. dhakhtarka markii la geeyey xaaladiisii oo cabbaar kooma ku jiray oo suntiisii jirkiisa laga soo saaray badankeedii, ugu dambeyn oo lagu guulaystay in naftiisa la badbaadiyo wiilkii. dabadeed markii wiilkii soo baraaruray oo miirsaday oo dadkii kala yara gartay, waxaa soo booqatay gabadhii iyada daraaddeed sunta u cabbay. niyadda ayay u dhistay, wayna dejisay oo waxay ku tiri waxaad samaysay wax akhlaaq xumo ayay ahayd bay ku tiri. qaab dhaqankaaguna aad iyo aad buu khaldan yahay bay ku tiri. waxay ku tiri caqligaada inaad adeegsatay waa muhiim oo sida iskugu dhaanto, sababtoo bay ku tiri xiriirka inaga dhexeeya saaxiibtinimo muu dhaafsiisaneen, mana jiro waxa aad keensanaysid iyo suntanaadi anigii dartay u cabisid wax keensanaya waalida aad ku dhaqmisid. anigu saaxiibtinimo u aabay ku tiri xiriirkeena. wiilkii niyadda ayuu ka siira murugdooday markii intaa u sheegtay. haddaba muddo ka bacdii markuu wiilkii dhakhtarkii ka soo baxay ayaa arrinkeedu sirteedu iyo dhan uu ogaaday inantu ninka iyadu jecleed, ninkan askariga ee lahayd aabbahay baa qasab ii siiyey 3 xidigoolaha iyadaa jecleed, balse waxa laale wax qasab lagu siiyey ma jirtee iyadu dooqeydii noqday. markastana wuu u tegi jirtay. sidoo xaqiiqada ogaaday inan markasta ninkaa la kulmi jirtay ahayd. markuu ogaaday uu halkaa ka dareemay ayuu kalsooni darro u dareemay, ayuu halka murugo ku sii dareemayba wiilkii. maalintaas wuxuu sawirro ka hayay ayuu jeexjeexay si uu uga reysto xasuusahaas uu soo xasuusanayo. wuxuu kaloo halkaa ku gubay maro yaroo shiidaadu oo u keentay oo dibnaheedu ku sawiran yihiin, ayuu halkaa ku gubay siduu uga reysto xasuusaheeda. haddaba inantii saameyn weyn bay ku reebtay. bashaasnimadii iyo uu caanka ku ahaa iyo firfircoonadii iyo waxbarashadiisii iyo akhriskii uu dadaali jirayba, inankii uu daciif ku noqday. hurdadii ayaa macal ka hayaantay inankii. maansanaan ayuu galay inankii iyo saamileel inuu markasta u saamileel. saaxiibadii kuwii ka dhowaa markuu kulliyadda soo galo waxay u yeedhi jireen maadeeyaha kulliyadda oo waagii hore uu gabadha u jeclaa. horaana loo yidhi ruux jeceelani bilaashuu mahe uma tahe. bariyaasuu dee uu ahaa wiil gabayada sidaa u sii dayn jiray, balse iminka saaxiibadii waxay dareemeen inay wax khaldan yihiin. wiilkii si daciifa ayuu noloshiisana waxba iska bedelay. inankii aduu gabadhay shakhsiyadiisa iyo karaamadiisiiba way dhaawacday. marmarka qaarkood buu yidhi waxaan ku fakaraaba iyada iyo ninkeedaba iyo jacaylka ay jeclaatayba ninkeeda in aabaheed aan u diro dhanbaalo jacayla ee ay ii soo qori jirtay. haddana ku dhaca kuma lihii buu yidhi
oo jacaylkeeda ayaa iga awood weynaada kuma dhaco. Xaalad nafsiya ayuu galay wiilkii, werwer iyo walbahaar iyo cabsi ayuu ka cabsanayo in imtixaanku sanadkan dhaco ayuu galay. Intaana waxaa u sii dheeraaba wiilkii xanuun ayuu ku yeeshay jacaylku intuu jeclaado jidhkiisa qayb ka mid ah ayaa yeeshay gariirtuu yeeshay jidhkiisa qayb ka mid ah. Intaa waxaa usii dheeraa wiil markastuu saamileeli jiray markuu isdhaho bal imika alleele imika hurdo iska yara baad oo joodariya u soo jiibsado ayuunbuu nafsi ahaan uu ka dareemaya, laabta cidhiidhi ayuu ka dareemayay. Adiga maxay kula tahay daawada, gabadh aad jeceshahay oo jacayl kuu sheegatay oo dalxiisooda aadaan waqtiga firaaqada oo sawiradeeda kuu soo dirtay oo heesaa jacaylka kugu luuqadayn jirtay oo kuuna sheegatay inaad si dhaba ku jecesho qalbigaaga hanatay, aadna si dhaba aad u jeclaatay, kadibna hadhowte aayaroo dhalatay intay soo dhiiranaato si dhiiran kugu timaado kugu tiraado waxay naga dhexeeyey saaxiibtinimo muna aan dhaafsiisanayn, inaga saaxiibeen haynin, waxay naga dhexeeyeyna saaxiibtinimo ah. Siday kula tahay wiilkii dhaqankaas ayaa inantii ku reebtay. Wiilku wuxuu kusoo gabagabeeyaa hadalkiisii dhaqanka maxaad u taqaanaan. Haddaba saaxiibayaal, qisadaas xod tayro kooban ayaan ka helnay, halkaasayna kusoo gabagabeynaa aan kusoo xidhanaa. bal maxay cibro qaadasheen ka qaadan karnaa qisadan? Horta oraaba ahayd weligaa dumarka xaqiiqadooda dhabta ogaamaysid ilaa iyo qabrigaaga lagugu aaso maahaane. Dumarka xaqiiqadooda dhabta ogaamaysid, dumarkuna waa sida oraadaan kasoo maqlay xaqiiqadooda ogaamaysid. Iyadoo nin kale halkan kula hadlaysa oo nin kale la hadlaysa ayay ku odhanaysa waan ku jecelahay, waan ku dhimanayaa bay ku odhanaysa, hadda iyadoo qof kale xidhiidh la leh. Marka markastoo aad qof dumara xidhiidh la yeelanaysid ka yara gaagaabso, qalbigaaga ha iswada siin. midda kale qofka bini'aadanka haddaad jeclaatay de iskaga hadhda hadduu ku dhaho kuma doonayo. qofka uu jecel hadduu kuu dhaco jacaylka lisma dareensiiyo, lisma sii raacraaciyo. haddaad isisii raacraacisid murugo ayaad ka dhexlaysaa iyo werwer iyo rafaad. maanta farxadda maanta ayuu kaa qasaya haddaad wixii shalay aad soo dhaaftay iyo jacaylkii qofkii qalbiga kaa jabiyay aad ku mashquulshid, farxadda maanta ayuu kaa qasaya. marka taasuna waa taas. wiilkaasuna isagaa isdaad raaciye oo inantii israaciyey jacaylkeedii, kadibna waa kii waxbarashadiisii ku seegay, waa kii naftiisa ku waayaalka caafimaadkiisa. oraaba ahayd maalinta aynu u noolaano beri daraaddeed waa maalin inaga khasaaray. maalintaad u noolaatid beri daraaddeed waa maalin aad inaga khasaaray weeye oraadan. marka maalintaad u noolaatid qof shakhsiya oo bila'aadana ayaad khasaartay. qof bila'aadana markuu kaa tago iskaga hadh. adduunyadu waa wala rag, hadduu inan tahay oo inan kaa tegay, haddaad inan tahay oo inan aad weydayna ee jacayl kaaga baxdayna, adduunyadu waa wada dumar. marka qof keliya laguma soo koobo noloshaaga, lamana calacalo. taasuna waa taas. haddaba taliyo tusaale intaasaanu ka dhiibtay. aduu fakarkaaga ka dhiibo, komitida nugu reebaysa, muuqaalka leed saara. muuqaalkii ka horreeyey dad yar baa daawada, fiisku aad buu yaraa. muuqaalkaa lasoo daawado, muuqaalka leed saara siduu dad badan u gaadho. biliis anagana dhiirigelin bay noo tahay sidaan usoo badino muuqaalo caynkana oo kale iyo qisooyin iyo xaqiiqada ku saabsan. keliyata jalankeena samagarad kuma saabsana dhanka qisooyinka oo keliya, balse all of the world muuqaalo kasta oo lasoo dhigi doonaa. insha allah waan soo dhigi doonaa, wayna soo socdaan muuqaalo taariikh hadday tahay muuqaalo badan bay insha allah inoo soo socdaan.
channelka haddaad waxaan ku baraarujinayaa channelka haddaad ku cusubtaa subscribe ba saaraysaa haddii hore noola joogtayna muuqaalka leed ba saaraysaa inta muuqaalka xiga aan isugu imanano waxaan iga tegayaa amaana Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.